waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed gooray ahaataa walla Kenya way geline iyadoo gafuur weyn walla geeri uga badan burburkii kadib Soomaaliya siyaasadeeda dibadda iyo gudaha waxaa daaha gadaashiisa ka hagi jiray dawladaha shisheeye qaarkood waxay gaareen heer in ay isqarin waayaan oo ay faragelin toos ah sameeyaan ujeedkooduna wuxuu ahaa in Soomaalida ay isku diraan ayna ku jiraan weligood dagaallo fowdo iyo burbur si aysan kheyraadkooda uga faa'iideysan Kenya oo dhul Soomaaliyeed xoog ku haysata oo gumeystihii uu gacanta u geliyay ayaa fikirkeeda gaaban wuxuu tusiyay in dhul hor leh ay boobaan iyagoo adeegsanaya wax walba oo damacaasi u suurtagelin kara geed dheer iyo mid gaaban ayay u koreen ciidankeeda si sharci darro ah ayay dalka ku soo gelisay xusuuq iyo falal foolxun ayay geysteen intaasi kuma ekaan dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool iyo kuwa u safraya ayay kula kaceen xadgudubyo iyo dhibaatooyin kale Soomaaliya oo burburkii gaaray ka soo kabanaysa ayaa caalamka cod dheer ugu sheegtay in faragelinta laga daayo loona madax baneeyo go'aamadeeda iyo qorshayaasheeda kale ee u gaarka ah waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan arrintan wadamada qaar oo Soomaaliya qallaasaheeda faa'iido iyo dana gaar ah ku qabay ayay u cuntami weysay waxaana ay bilaabeen loolan iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah dawladda Kenya oo badda Soomaaliya damac uu kaga jiro ayaa waaga uu ku baryay hadalka nixiyay ayay Muqdisho ka maqashay filanwa ayay ku noqotay in Soomaaliya ay faragelin diidan tahay waxaana ay bilowday dagaal qaawan oo ka dhan ah Soomaaliya iyada oo xumeysay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo ciyaaraysa siyaasad sal adag oo Soomaalida u dan ah ayaa Kenya dhagaheeda ku dhibcisay in ciidda Soomaaliya gorgortan iyo wada hadal aysan ka galaynin danta iyo wanaagga labada dalna ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed in la hagaajiyo iyo in arinta badda Soomaaliya ee Kenya damaca uu kaga jirana lagu dhameeyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ qandho iyo madax xanuun ayay ka qaaday Kenya go'aanada ka imaanaya dhanka Soomaaliya dagaalkeedii qariska tuurka ahaa ayayna sii wadatay ilaa iyo heer ay gaareen in ay hubeeyaan jabhad uu wato nin dambiyo dagaal galay oo baxsad ka ah cadaaladda si ay markaasi ugu carqaladeeyaan shumaca dawladnimo ee u ifaya ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya oo indhaha ku haysa dhaqdhaqaaqyada guracan ee Kenya ayaa soo saartay bayaan ay dawladdaasi uga digtay ficilada guracan ee ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika waxaana ay mar kale ku celisay in Kenya ay ka fiirsato faragelinta qaawan ee ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo kasta oo ay markaasi ku xaqiijinayso madax banaanideeda siyaasadeed iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya haddaba Kenya oo awoodeeda ciidan ay aad u liidato ayaa cawaaqib xun oo aan la mahadin kala kulmi doonta Soomaaliya oo dawladeeda shacabkeeda iyo ciidankeeduba ay ka mideysan yihiin in gorgortan aan la gelin dhulka Soomaaliyeed iyo in dhiig loo daadiyo difaaca qarannimada mooye Thank you.